waxaan ninka hadda hogaaminaya dabdamiska caawda shaqada ku jira waxaan ku soo galnay laba baabuur oo dabdamisya kii horena waa dhameeyay hadda waa baxay kii kalena waa ka dawada alxamdulillah anaga shaqadeena iyo gurmadkeena waa sidaan mar walba aan u taaganahay oo ummadda ugu soo gurmanaa wixii ilaahay u kaso waa ku badbaadaan wixii hortaan burburayna way burburaan laakiin biidnillaahi kariim inta badan inaan wax badbaadinaa isku daynaa waata baaxadda dabka aad aragteen aad maanta aad ka howlgasheen ilaa intee leedahay wallahi dabka waa dhaxad aan u jeedid ilaa inta gees le ilaa gees dambe leh oo ilaa hadda dhinacaas gadaal ka soo dhamaynay qayb dambe gadaal noo dhimo waa shidaal taayiro isbayr baarti maqaayad meel qashin oo dambe marka wallahi hawl xoog la waaye laakiin waa ku dagaalamayna haddii ilaahayno biidnillaahi kariim waa mahadsantihiin SBC aniga magacaygu waa xidiga qaranka Soomaaliyeed waxaan ka mid ahay dhalinyarada meeshaan joogta ama ku ganacsata waxaan joogaa gareeshka marka waa mahadsantihiin marka salaadii casir aan isleenahay waa la soo tukaday abaari 4 iyo wax la mid ah ayaan waxaan aragnay dab kacay marka qasaaruhu saas uu ku bilowday marka meeshan hadda aan taaganahay maxay ahayd awal meeshaan hadda aan taaganahay sida aad u jeedaanba laba qaybood ay isugu jirtaa qayb waxay ahayd geerash baabuurta cusub oo lagu iibiyo qaybna waxay ahayd isbeer baartiska lagu iibiyo dayactirka baabuurta marka maxaa khasaara oo idinka soo gaaray maadaama aad ka mid dadkii meesha ku ganacsanay waa mahadsan tahay radio SBC waxaan rabaa qasaaruhu waxyaabo badan oo isugu jira horta waxba ma dhicin qasaaro nafeed waxaa jira qasaaro nafeed ma dhicin waxaa jira qasaaro kale oo dhinacii tukaamadii ahaayoo dhan waa ay gubteen waxaan taaganahay degmada waa bari isgooska number 4 xaalad adag meesha ka dhacday dab ayaa ka kacay garaash ku yaalo degmada waa bari gaar ahaan hotel Afrique agtiisa garaashkaaseti oo ka koobnaa dukaamo ganacsi lagu gado isbeer baartiska baabuurta iyo lagu iibiyo baabuurta waxaan aad ugu mahadcelinaa shacabka ku nool caasimadda gobolka Banaadir sida qiimaha leh ee ugu soo gurmadeen iyo maamulka gobolka qaybta gurmadka degdega ambalaasyada iyo dabdamisyada sida la isku kaashaday waad arkaysaan dabkii baaxadda weynaa waa la soo afjaray alxamdulilaahi rabbil caalamiin ma jiro dhimasho nafeed ma jiro laakiin waxaa jiro qasaaro hantiyeed aan la koobi karin iyo waxyaalaha dabka ee ku kacday baaritaan ayaa ku socdo
khasaaro aad u fara badan jiro hadda aan la sheegi karin laakiin dib loo soo sheegi doono baaritaan ayaa ku socdo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir sida ay gacanta ugu siiyeen shacabka Soomaaliyeed ee hantidooda maanta meeshaan ku baabaaday waxaan leeyahay beddelkooda qeyr qabo Allah soo geliyo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha isku gurmato dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha amniga siyaasadda maanta gelikii dambe waxaa halkan oo ah goob ganacsi geerish baabuurta lagu xareeyo iyo goob shidaal iyo spare partsyo ka kacay dab aad u xoogan dabkaas oo sida arkaysaan runtii khasaare aad u xoogan geystay oo dhowrkii saac u dambeeyay aan la tacaalaynay sidii khasaarahaas loo yareen lahaa ama loo damin lahaa halkan goobo kale oo ganacsiga ku dhagan oo runtii aad u xoog badan oo hadduu khasaaruhu gaari lahaa ay saameynteedu intaan ka badnaa lahayd sida haddana loo xaqiijiyay ma jiro wax khasaare nafeeda laakiin khasaare guud oo hantiyadeeda jira dad shaqaalihii dabdamiska qof ka mid ah oo asaguna uu naqasku ku xirmay oo hadda gurmad degdega loo sameeyaa jira oo dadkii ciidankii shaqaalaha gurmadka ka mid ah inta kale waa khasaare guud oo hantiyadeed oo mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay dadkii shacabka ahaa ee hantidan lahaana runtii aad iyo aadaan aan uga xunnahay khasaaraha soo gaaray waa sida uu dabku ku kacay siyaabo kala duwanaa loo fasiray hadda kama hor dhici karno qolo tiraahda dab ha ka kaco qolo tiraahda meel maqaayada oo ganacsiga inta ku dhex taalo ka kacay waxaasoo dhan waa fasiraad aan hadda la xaqiijin karin laakiin ilaa berri jawaabaa laga keeni doonaa sida ay dabka ku bilowday caadiyanba dabka markii goobtu ay tahay goob shidaal waxyaabo aad u fudud oo dadka ku ganacsanaya ay abuuraan baa horta dabkaas keena wax yar kadibna wuxuu noqdaa dab aad u xoog badan oo khasaarihiisu uu badan yahay ama ha noqoto sigaar goobta qof cabaaya uu ku tuuro ama ha noqoto koronto ka kacda waxaasoo dhan dib aan ka soo sheegi doonaa hadduu alla idmo laakiin waxay u badan tahay dadkii goobta ku ganacsanaya dhexdooda wax ka yimid inuu yahay ama koronto ha noqoto ama ayaga dhexdooda ha noqoto dib aan ka soo sheegi doonaa waa mahadsantihiin.